golaha wakiilada Somaliland waxa maanta la hor keenay wax ka bedelka iyo kaabista qabyo qoraalka xeerka qandaraas bixinta dawladda shirkaasi oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale xeerkaasi oo ay dood ka yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada xeerku wuxuu sameeyaa qodobka 30aad waxa la yiraahdo guddiga dib u eegista qandaraaska ee madax bannaan guddigaas waxa loo horta waa guddi soo madax bannaan waxaana magacaabay wasiirka maaliyadda marka waxa guddigaasi transparency-ga xeerka ama guddiga ma xoojinaysa aan aaminsan guddi sabtaba wasiirku magacaabay oo wasiirku markaa waxaan leeyahay guddiga haddii xitaa siisa loo daayo aan waxaan soo jeedinayaa in xubnuhu waxa weeyaan guddigu wuxuu ka koobnaan doonaa maxaa la yidhahdaa 5 xubnood baa la yidhi oo qodobka 100 baa wuxuu leeyahay xubnaha guddiga dib u eegista waxay ka koobnaan doonaan 5 xubnood kuwaasi oo ahaan doona wadani caan ah aan ka shaqeyn adeega dawladda weeyay shirkadaha gudaha hal la dhiso milyan dollar waa hal siyaar u leeyahay wixii inta ka badan caalamka loo bandhigay shirkadaha wixii gudaha hawaan la siiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa gabagabadii sheegay inay sii socon doonto dooda xeerka qandaraas bixinta dawladda in si wanaagsan loo soo xiriyo barino ay noo sii socoto doodu waana xeerarka ugu muhiimsan ee inaga sugayo kamid yahay runtii waxaan aad mar labaad codsanaynaa in xoog loo soo akhriyo doodiinu noqon mayso biyo culaashay waa la tixgelinayaa miniteska waynu tixgelinaynaa awoodiina wax ka bedel iyo wax ku darisba way ka muuqanaysaa xeerarka marka fadlan soo akhriya barino dooda ay noo sii socon doonto waa maasantii Guulen Maxamed Aadan telefishinka Saab Hargeysa.